akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudug kusoo dhawaada barnaamij gaar oo ka eegno ka faa'iidaysiga kheyraadka xoolaha. Kheyraadka xoolaha gaar ahaan geelu waa kuwa ugu qaalisan ee ummadda Soomaaliyeed ay dhaqato. Geelu waxa uu Soomaalida u leeyahay muhiimad kala duwan sida mid dhaqaale, mid bulsho, waxaana ugu jira waxyaabaha ugu qaalisan ee ka ganacsadaan sida caanihiisa, hilibkiisa iyo haragiisa. Waxa kale uu leeyahay muhiimad dhaqan oo hadday tahay bixinta dhiigga ama yagleelidda reer cusub oo dhaqan ahaan ugu muhiimsan yahay yaradka, hibada, sooriyada oo mansabadda ugu sarraysa tahay in geel lagu lugo iyo in meelaha qaar uu yahay astaanta qaninimo oo awrtana loo isticmaalo gaadiid. Muddooyinka hore waxaa lagu dhaqi jiray geela kaymaha leh hawdka iyo buuraha, halka qaybo ka mid ah bulshada geela dhaqata ay aaminsan tahay inaan geela xeradiisa la bedelin haddii aanu geedi jirin. Balse muddooyinka dambe waxaa soo badanaya in geela nidaam casri ah oo la jaan qaadaya nolosha magaalada lagu dhaqo duleedka magaalooyinka. Deeq Weerare waxa uu ka mid yahay qurba joogta deegaanka u dhalatay, waxaana ku nool yahay dalka Maraykanka oo qaar ka mid ah bulshadeenu u arkaan meel ka fiican nolosha Afrika. Deeq Weerare waxa uu Maraykanka uga soo jarmaaday inuu duleedka degmada Danlooda hab casri ah ugu dhaqdo geela. Haddaba waa sidee qaab dhaqashada geela iyo Deeq Weerare sida uu geela ugu dhaqo duleedkaasi? Waxaana weydiinay waxyaabaha ku kalifay inuu wakhtigan bilaabo dhaqidda geela. Deeq Weerare ayaa tilmaamay inuu nidaamka dhaqashada geela uu yahay mid ka duwan sidii hore oo doonaya inuu ku dhaqo duleedka magaalooyinka si looga faa'iideystana caanihiisa. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacayga waxaa la yiraahdaa Deeq Weerare. Waxaan ku noolahay dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, magaalada la yiraahdo Minneapolis. Magaalada muddo dheer baan ku noolaa, 22 sano yaan wadanka ku noolaa. Anoo wiil yar oo dhalinyaro oo geel jira ah yaa wadankan laga kaxay. Kolkii wadanka aan tagay wixii aan moodahayay inay yaalaan uguma tagin. Shaqo yar oo aan naf lahayn oo 8 saacadood ah baa waxa weeye madaxna loo geliyay. Shaqadii kuma filla biilashii iyo haddii la ku roonyahay wixii kale aad qabsan lahayd isma gaarayso. deedna waan fikiro waxaan idhi warniyo heedha wadanka muddo dheerna waad joogtay, sidanina waxa weeye horumar ma ahe maxaad samaysaa? waan fikiray waxaan is alla ilaahay shaqadan 8 saacadooda haddaad 4 saac oo bar time ku darto miyaadan geel tabci karin maansir? miyaadan geel tabci karin maansir? waxaan go'aansaday marka shaqada full time kaana inaan biilasha ku dabaro shaqada bar time kaana inaan maalin labadii asbuucba inaan qaalinka iibiyo. ganacsiguna kolbo ka taqaano iugu faa'iido badan yahay. geelu ganacsi buu noqon karaa. anigu waxaan damacsanahay inaan ka duwo sidii hore ee geela loo dhaqan jiray, si ka duwan baan rabaa inaan geela u dhaqo. dhaqashada geela casriga ah dhaqashada casriga ah ee waayahan dambe aad u soo baatay, anigu dhaqashadaasaan doonahay geela inaan ku dhaqo. waagii hore geela nin baa lahaan jiray, wuu iska daba socon jiray, isaga iyo geelu buu isla rafaadi jireen. ninkii 100 halaad shalay lahaa oo maanta ka faramadoob aad arkaysa. maanta laakiin geelashu waa la fariisiyay. geeli wuu nastay, ninkii raacahayay wuu nastay, waa la manaafacaadsaday. haddii alla kuu roon yahay ganacsi buu noqday. kolka sida dukaanka kale way geelu. dukaanka waliba macdallahi uu ka fiican yahay, waayo neefka geela waxa weeye waa lacagtaadii oo bangiga ku taala oo interest free ah oo xalaal ah kuugu socdo. interest xalaal ah yaa kuugu socdo. tusaale ahaan hasha markaad gaddo $500 baad siisay ka soo qaad hashu way dhali way rimi, haddii la ku ruhin way dhali, da' walbana way kuu dhali. neefka ay dhasho 3 sano hadduu joogo 500 baad dib u gadi kartaa hadduu lab yahay. hadduu dhadig yahayna waxaad samayn kartaa waad xerada u dayn kartaa oo laba jibaar bay ku noqonaysaa. marka ganacsi aan lagu khasaaraynin oo la tijaabiyey weeyaan, oo horey loo waxa weeye tijaabiyey. sida aawadeed baan anigu geela u doortay. aqoon aan u lahaa yaan waxa weeye aan ugu dhiiraday. wiilaan adeero ah yaan soo wacay
waxaan ku idhi war adeer geel baan rabaa inaan tabcado lacag hadda badan oo aan soo dirahayo oo aan ku leeyahay kontonkaa kun qabo oo geel ku gadna ma jirto waxaan ku idhi labadii asbuucba $500 baan kuu soo diri qaalinu nii iibi qaalin 4 jira ii iibi baan ku idhi oo roobka dambe ii rinta adiguna lacag $50 qaado markaad qaalin gadaba $50 qaado wiilka arrinka ula dhacay wuu sameeyey waa yahay buu yidhi hawshii baanu gallay labadii asbuucba qaalin 4 jira umaan gadahay qaalintii aan ugu horgalay geela halkan ku jirta hadda baari baa la yidhaahdaa waan idin tusi doonaa geela soo badbaaday bay ku jirtaa dib baadna ku ogaan doontaan waxaan ka wada geela soo badbaaday geeli kolkaan gaday oo geel yaroo hore oo kaana ahaayoo geeli aabbahay anigu aan raaci jiray ka joogo oo 30 ahaa yaa waxaan ku daray qaalmo 18 ah roobkii baa da'ay 18 qaalmood oo 4 jira anoo gadnay iyo roobkii da'ay wuxuu yidhi qaalmihii ritibay u baahan yihiin buu yidhi adeero soo raadi baan ku rirtay baarqaba rirti baarqaba soo helay aad u qiimo badan waxaa la yidhi rirtigii lacag $1,000 ah yaana lagu baayacay $1,000 baan soo diray rirtigii oo noo baayacan oo aan leenahay geel aad ku dartaan ayuunbu ninkii cabdi ii leeyahay inta yimid geeliiba kaxaystayba gebigiisiiba birta ugu dhuftay ma waxaad aragtay geel bil dhan un magaalo ka ugaamahaya geelaagii oo bil dhan magaalo dhexdeeda ku xaraysan oo ugaamahaya oo aadan waxaa weeye aadan waxba ka qaban karin wuxuu sabab uga dhigoo yidhi wuxuu sabab uga dhigay geela wiilaad walaala-tihiin yaa facebooka ka caytamay buu oo mucaarad noqday deedna markaan hawshii daba galay aan yidhi war anigii dee ninkaas 2 nin baan kala nahay wuxuu yidhi waxaad samaysaa haddaad doonayso imow oo intaad timaaddo oo jigjiga timaaddo welibana tv-ga imow oo afuuf cay arrinkaas sara baan anigu arkay waan diiday caay mahaya baan ku idhi walaalkay anigu jigjigan iman mahaya baan ku idhi wuxuu doonaya inta jigjiga imaado inuu anna jeelowaadan igu rido sumcaddayduna halkaa ku burburtaan walaalkayna halkaa ku caayo neefna uusa ii soo celin adigu geelii 2 sano yuu sidii noogaga maqnaa mid la qasho iyo mid la gato iyo mid lunto yuu noqday geeli nag buu yidhi goortii uu dhacahaye ee uu ciirahaye uu degmooyinka iska magacaabahaye uu wareersanaa yuu yidhi 20 halaad oo qaalmihii aan gaday u badan yuu yidhi yuu la wareega geelii baan u tagnay geelu qarrida muuse aqoonin oo dhul geel ciidda yaqaanu ahaa intuu baaba'ay 20 qaalmood ay baaba'een qaxoobiye ah yaanu ka soo kaxaynay nasiib wanaag qaalmihii waxay u badnaayeen qaalmihii aan gadnay dambe yay u badnaayeen qaalmihii baa 12 qaalmood oo ka mid ah yaa soo badbaaday geel adigu 8 halaad ahoo geeli hore ana isna wuu ku jira 12 qaalmood baa 8 riman geeli waaweynana 4 baa ka rimay gugii dambe 12 dhashay geel 12 yaa dhalay xukuumaddan eega joogta ee barakaysan ee uu hogaaminayo mudane madaxweyne Mustafa Maxamed Cumarna way timid markii baan dib ugu dhiiraday geeli inaan mar labaad aan dib u gado oo dib inaan waxay noqotay aan dib geeli u askumo mar labaad geeli waa ka maanta ma sha Allah alxamdulillah wuxuu marayaa tiro fiican buu marayaa maanta waa geel 100ka wax dheer waxbaaba dheerba haddii ilaahay ku ron yahay waxaan samaynaynaa geelaasi hadda wuu rimahayaa saa haddaad isha u marisa qaalmo u badan yahay waa geeli aanu hadda gadaal aan ka gaday geelaas rimahayaa geel kontumeey ah yaa rimahaya yoolkanagu waxaa weeye geelaas goortuu dhalo in caanihiisa magaalada looga faa'iideeyo
waayo dadkeena jilicsanaa duqeytida lahaa macnaha waxa weeye maxaasta ahaa magaalada u badan yihiin magaalada haddaad tagto barqankii caano saafi ah ka heli maysid wax caano saafi ah ka heli maysid marka si annaguna aan uga faa'iideyn dadkana aan uga faa'iideyno annaguna aan wax uga helno way rajadan aanu qabno haddaba deeq weer ayaa xukuumadda deegaanka ka codsanaya in loo fududeeyo gaadiidka geela loogu adeegi lahaa sidoo kalena ugu baaqi qurba joogta inay maalgashi ka sameeyaan deegaanka deeq weer ayaa sidoo kale shaqo abuur ay ka heleen dhaqidda geelihiisana islamarkaana uu ku booriyey inay dadka kalena ay ka faa'iidaystaan khayraadka uu leeyahay geelu caqabado yarar baa jiro oo na haysta caqabadahaas waxaa ka mid ah geelu maadaama oo abaari iyo wax iska soo laalaabteen cawskiina u yar fogaaday aad buu uga yar fog yahay riigag oo ka dursan yahay marka waxaa laga yaabaa maalmaha qaarkood inuu 3 maalmood geelaasi uu guul oomane ahaado oo laba habeen intuu sii waxa weeye arooro habeenka dambana uu maalin kale dib u sugo riiga waayo riigu aad buu qalab badan yahay booyadihii baa iman haya meel walba lagaga soo waxa weeye aroorahaya riig waa riiga dannood wey oo xaggan iyo gaashaama lagaga iman haya booyadihii baa iman haya xataa Soomaaliya lagaga iman haya dhinac walba marka qaladaha faraha badan awgeed si aan uga baxno waxaan u baahnaan lahayn oo dawladda sharafta leh uu hogaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar aanu ka codsanaynaa booyad aan walibana kuwa waaweyn ahayn kuwan shaambooga ah saaran ah iyo ramarkeedu inay nagu caawiyaan iyo inay gaari yar oo geel aan ugu adeegno hadda barobokisa oo aad arki doontaan gaarigan in loo sharciyeeyo oo taarikadii naloogu dhajiyo yarbaana sababtoo ah geelu wuu xanuunsadaa bari dhawada hadda geel cudurku leenahay waxaan dabaa inaan jigjiga aado marka waxay igu noqotay inaan bas raaco oo waxa weeye waqti dheer bay igu qaatay oo dhakhtar u raadiyo laakiin haddii gaarigaas uu sharciyeysan yahay subax intaan halkan ka boodaan isla habeenkiiba dhakhtarkaygii daawadeeda ka soo qaadan kara jir marka gaarigaas yarna in la ii sharciyo la ii taarikeeyo dawladduna hadday awoodo booyada iyo ramarka inay ugu caawiso aad baan u jeclaan lahaa rajo aad u weyn baan ka qabaa haddii ilaahay ku runan yahay halkan tuurdibi dusheedan leeyahay ku xariisid beri dhow oo dekedaa garacad alaabteedoo dhan baa imanaysa deked halkan tuurdibi beri dhow ganacsi weyn yaa halka ka furmi doona waxaa loo baahan doonaa caanaha geela iyo hilibka geela waa loo baahan doonaa geela hadda rag 3 nin baa hadda si toos uga shaqeeya oo walibana mushahaari ah raggaasi waxaa weeye nin walba qaalin 5 jir ah yuu qaataa sanadkii bil walbana lacag $50 ah yuu qaataa labada nin yaryar ninka weynna lacag $100 qaataa haddii ilaahay yiraahdana waxaanu doonaynaa shaqo abuur kale inaan sii sameeyno oo sii badino oo bulshada uga faa'iideyno geela aniga oo qura iskale nimaan walaalanahay oo waxaa jira hadda isaguna hawsha maagan oo raba inuu hawsha isaguna uu sameeyo igu xigsado ninkaas hadda waxa weeye qaalmihii ugu horeeyay isna bilaabay oo hadda waxa weeye raba beri dhow inuu isoo waxa weeye qabto markaan kaftamayno waxaan idhahnaa waxaan dhihi war jeereen soo gaari maysa anigu jab badan baan bahalka la soo maray markaasuu dhihi iska daayo waan ku soo gaari buu dhihi marka ninkaasaa isaguna hadda qaalmihii ugu horreeyay geela gaday kambani baan rabnaa inaan halka ka samayno insha allah haddii ilahay yidhaahdo geela caanihiisa heer la dhoofiyo inaanu gaarsiinaanu doonaynaa adduunka waa laga faa'iiday geela caanihiisa hadda carabahoo kale kareemkii bay ka sameeyeen saabuuntii bay ka sameeyeen yani waxaa weeye hilibkiisii baa intii sida kalluunkii gasacada lagu riday baa la dhoofinhayaa kaadidiisiina de waaba lagu sheegaba oo dhakhaatiirtu waxay sheegeenba kaadidiisuna inay dawata yay sheegeen marka halkaa mustaqbal fiican oo ganacsi baa ka soo socda waana ku dhiirigelinayaa dhallinyarada qurba joogta ah ee sidaydoo kale miyiga ku kacaamay ee jecel geela inay dhaqdaan war niman yahow geela taqaanin ma aha waxaa weeye waa la fadhiisinhayaa caanihiisii waa lacag cadkiisii waa lacag haddii ilaahay kuu roon yahay waxaa taqaanaana laga faa'iidaystaa kuwa kale ee aan geela ku kacaaminna
waxaan dhihi lahaa haddii aad beerley ahaydeenna beerihiinnii tabcada xataa tii yaanyo goobi jirtay yaanyadii un ha tabcdo qof walba wax alla wuxuu yaqaanay iyo wax ka soo saari karaa niman yahow dhulkaa anigu muddo dheer baan jooga 22 sana waanu isgaranaynaa dhulkaasi dabin baa la inoo qoolay shaqo 8 saaca lagugu koobay 8 saac waxaa lagugu talagalay biilka gurigaaga inayna ka badan gaariga inshuursigiisa biilkaaga gurigiisa $100 ee aad qaraabadaada u soo dirayso kama badanayso marka yaan la idin wareerinin shaqada yartaa sidii aad wax uga soo saari lahaydin ganacsigu sidiisaba maal badan uma baahna maskax buu u baahan yahay ganacsigu anu geelan markaan bilaabay saan idin sheegaba ma haysanin lacag badan oo buuran ma haysanin waan fikiray waxaan ogaaday inaan ka adkahay qaalin inaan ka adkahay 2 asbuucba shaqo baar time oo 4 saacadood aan ka soo shaqeynay yaan geelaas oo dhan ka gaday wataa qaalintii ugu horeysay aan qaalmaha ku bilaabay geela ku bilaabay wataa laba dhal weeye eegana wataas oo way rimanta hashaas waxa weeye geela way iga duwan tahay xusuus gooni ah iyo ii leedahay waan hashii markii dhaweed aan lisahay weeye kolka yar maanta hayna caanaheeda iyadoo baan cabaanugu oo iyadoo joogta halka caanaheeda ma cabo marka wakaas alxamdulillah geel wuxuu leeyahay haybad gooni ah buu leeyahay tii hore way iga kala tuurtay baan idhi laakiin tani inay ikaabta mooye tu iga kala tuuraysa ma hadda dhulku waa nabadgeliyo gaariga yarkaasaan u soo wataan geedka bilcilka geel dawisa ay ban madaxa saa ugu gelin deedna golihiisaan aar iska seexanoo sanad walba inaan keenaan rabaa haddii ilaahay yidhahdo carruurtayda hadda qaalin halkan ku jirto oo aan idin tusi doono yaan ugu xudun xidhay wiilkayga geela hadda ugu jirtaa isaga iskale waa qaalin qoodh badan markay dhalatay baan ugu xudun xidhay marka wii weydiiyaa wuxuu yidhahdaa aabbe qaalintaydii ka war qaalintaydii ka war markaasaan idhahdaa qaalintaadii way joogtaa soo arki mayse markaasuu odhan haa wataa qaalintaa wey qaalintaas somaar qaalintaasaan ugu xudun xidhay haa hal qiimo badanna way dhasho suga la yidhaahdo marka way imanayaan insha allah haddii ilaah yidhaahdo xilliga doogaadoo kale yaa reeraha la keenaa oo carruurta la keenaa marka taasi waxay kaa caawinaysaa carruurtii way lumayaan haddaan dhaqankoodii la barin haddaan la barin way lumahayaan haddee maba yaqaanaan baa soo maaha haddii eeg aniga yaa baray aabbahayba ay baray soo maaha haddaana weligeyba arag geel iyo meel lagu dhaqmahay toona miyaan ku hawoon lahaa inaan geel tabcdo inaan tolkay iyo intaqaanaa dalkayga kusoo laabto miyaan ku hawoon lahaa waa maya marka waalidkaa laga rabaa inuu ilmihiisa uu dhaqankiisii baro soomaaliduna waxay ku mahmaadaa geedkaad 20 jirkaaga waabato yaad 60 jirkaaga harsataaba iyo ku mahmahan niman yahow meel lagu ritaayir gareeyo ma ahayn meeshii meel lagu dhintana ma ahayn meeshii aan ogaa meel lagu ritaayir gareeyo meel lagu dhinto midna ma ahayn haa ninku hadduu magaalada intuu guri ka dhisto oo magaalada dego oo haddii ilaahayba kuu roon yahay miyigana geel fiican ku leeyahay nolosha ugu fiican anigu aan arkay waa taa laakiin haddaad magaalada un iska joogto oo markii horena aad miyig ku kacantay waad kharibmaysa waxaan halkan aan joogno waa xeradii geela deeq weer cabdille geelisi xeradiis baan joognaa waxaan ka qaadanaa xidhaale mahad ilaahay baa iskale ammaana waxaa mudan ninka geelaas le asaga oo qurba jooga ku fikiray inuu samaysto geel inuu ka samaysto waddankiisii ka samaystay ammaan ninkaasaa iskale waxaa weeye markaas waxaan leeyahay walaalahayga muslimiinta ee asaga la nool iyo kuwa ay walaalaha yihiin asaga oo kale ku dayda si dalkiinni aad u maalgashataan marka walaalayaal waxaan leeyahay walaalada muslimiinta wadamada ku nool dalka dibadiisa ku nool ama ha joogaan macnaha Ameerika ha joogaan ama ha ka sokeeyaan dalka dibadiisa cidii naga nool waxaan leeyahay tan oo kale ha noo sameeyaan baan leeyahay faa'iidada geel uu leeyahay waa mid fara badan mid Ilaahay ku sheegay mid aadamuhu ku sheegaba aad bay u fara badan tahay
sida lagu yaqaano macnaha waa dalka tiirkiisa sida macnaha ay u tahay salaadu ay u tahay tiirka diinta ay u tahay diinta islaamka say salaadu ugu tahay tiirka buu adduunyada aan joognana tiirka geelu u yahay yuu geelu tiirka u yahay marka waxa weeyaan waxaan ku boorinayaa dadka muslimiinta geela inay samaystaan inay dhaqdaan sidan oo kale hadda waxa weeye ninkan halkan nala jooga ee geela leh isbuuc wuxuu joogay ameerika joogay ama ka shaybu joogay anigoon ka warhaynin inuu waddanka soo galay oo intaan geeli soo maalay aan jiibsaday oo caanii geelay ag yaallaan unbaan maqlay isagoo la hadlaya wiilkii geela ka dheelmaday wiilkii geela la joogay oo ay fiidkii tahay waan yaabay war ma deeq baa ninka hadlaya waan isku qoslay uun wareer goormaa timaaday shalay garab baan ka soo duulay ku leeyahay yaan ka soo duulay hindiya ka soo duulay waa mid aan la yaabay marka waxa weeyaan siduu sheegay isbuucii walba mataqaanaa labadii roob waa inuu roob joogo ama labada roobba joogo macnaha hawada iyo laxjallada ka haysa geela anu waxaan leeyahay markaas walaalayaashay inay sidaas oo kala sameeyaan hadduu dukaan yahay hadduu dilware beer yahay hadduu geel yahay hadduu digaag yahay hadduu lo yahay ganacsi walba ood bilaabayso waxaagaa yarkaad ku bilaabi kartaa laakiin haddaad tidhaahdo waxaan sugayaa lacag badanoo ururta lacagtu isumama timaadaba weligeed isu iman mayso meeshan waa eegga waaba laisku ugaarhsan hayaayo ninkii is yidhaahda madaxa qaadba waa ta la xidhahayo oo ganacsi laguma ogolo oo afrikaan baa tahay meesha cusuuliyad baa ka jirta marka dabinkaa ha ku dhicina nimayo dabinkaa isaga ah ha ku dhicina soo noqda dalkiinni u soo noqda anigu waxaan dalkiinni soo maalgashada anigu waxaan ugu jeclahay habeenka aan xerada golaha geela jiifo